kuwani waa sagaal waxyaabood oo u baahan inaad naftaada ka joojiso waliba si degdeg ah. run ahaantii dad badan waxa ay isbedel u sameyn waayeen. waxaa jira waxyaabo dib u celinaya kana hortaagan inay gaadhaan horumar la taaban karo. qaybta dambe ee muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa xigmado wax ku ool ah noloshaadana wax badan ka bedeli doona. Number 1, jooji inaad naftaada been u sheegto. aad khiyaalina kuma weeliso. nooca ugu xun beentu waa in naftaada aad been u sheegto. noloshu waxay horumar yeelataa kaliya marka aynu fursadaha ka faa'iideysano. fursadda ugu horeysa uguna wanaagsan ee aynu qaadan karnaa waa in nafteena aynu daacad u noqono. Number 2, jooji inaad waqti ku lumiso asxaabta xunxun. noloshu way gaaban tahay inaad waqti ku lumiso dadka farxadda ka qaadaya maaha ee waa inaad kala garataa nooca saaxiibada aad leedahay. saaxiibka xuni kaliya wuxuu kugu hogaamin karaa inuu dib u socod ku sameeyo noloshaada halka uu saaxiibka wanaagsanina uu kugu toosin doono wadadii guushaada. haddaba waa inaad iska eegto qofka aad saaxiib ka dhiganayso. Number 3, jooji inaad ka cararto dhibaatada. waxaad wajahdaa isla dhibaatada laftigeeda ilaa aad ka xalinayso. waa inaad u diidaa jaanis haba yaraade ay kaa hesho si aad isugu dhiibto. taasina ma aha wax sahlan oo kaliya waxa sameeya kuwa ku kalsoon naftooda. waxaadna ogaataa adduunka inaanu jirin qof dhibaato aysan weligii ku dhicin. xaqiiqdii dhammaanteen waxayna soo maraya murugo, kurbo, kadeed, kufid iyo weliba dhaawac soo gaadha qalbiyadeena. nolosha ayaana sidaas ah. adiga waxa laga rabaa dhib kasta oo ku soo gaadha inaad wajahdo oo aadna aqbashid kana feejignaato markastana aad xalliso. tani waa waxa kaa dhigaya qofka aad rabto inaad noqoto mustaqbalka. Number 4, jooji inaad naftaada u lumiso naf kale oo adiga kula mid ah. xanuunka ugu daran noloshu waa inaad naftaada u dayacdo jacayl ay u qabto naf kale. ogow qofka naftiisa jecel ayaa qof kalena jacayl siin kara. ma jiro qof aan adiga ka ahayn oo naftaada siinaya jacaylka ay mudan tahay. kaliya hal ruux ayaa adiga shuruud la'aan kuu jecel. mana heli doontid abid jacaylkaas mid la mid ah haddii aad garatay qofka. inta aynaan u gudbin qaybaheena kale ee muuqaalka, dabcan maskaxdaadu aad ayay u shaqaynaysaa. haddaba waa kee qofkaasi bilaa shuruudda kuu jecel adiga? cid kale maaha ee waa boqoradii dunida ku keentay adiga. inta aanan u gudbin qodobka xigana, fadlan u ducee boqoradaas ifka ku keentay adiga. nolol iyo geeriba allah kugu casuumo maamo jannooyinkiisa. Number 5, jooji inaad xaasid noqoto. xaasidnimadu waa inaad xisaabiso waxyaabaha qof kale uu alla ku manaystay aadna uga xumaato intii aad adigu taada xisaabin lahayd. Number 6, jooji inaad ku noolaato xasuusta wixii aad soo martay. ogowna wixii hore waa taariikh dhacday weligeedna ma soo laaban doonto. iska jooji walwalka iyo xasuustooda waayo waxay kaa qaadayaan helista farxadda maanta. Number 7, jooji cabsida inaad khalad ku dhacdo nolosha waayo inaad wax samayso oo aad qalado waxay 10 jeer ka fiican tahay inaadan waxba samaynin. guul kasta waxay leedahay fashil badan. ugu dambeyntii fashil kasta waxa uu kuu sii kaxaynaya wadadii aad guul ku gaari lahayd. Number 8, jooji isku dayga ah inaad farxad ka raadiso dad kale. haddii aanad ku faraxsanayn qofka aad tahay waxa aad haysato, ma jiro cid kale oo farxad ku siin karta adiga iyo waxyaabo qaali ah oo farxad kuu keeni karta. adigu waa inaad deganaan iyo qanacsanaan u abuurtaa naftaada. Number 9, jooji caajiska, wahsiga iyo kaliya inaad iska fadhido meel. naftaada oo aad siiso firaaqo badan waxay kuu horseedi kartaa burburka mustaqbalkaaga. ku mashquuli nafta, shaqo, wax akhris iyo samaynta wax faa'iido kuu leh adiga noloshaadana wax ku soo kordhinaya. iskana yaree fiirfiirinta social mediaha iyo waxyaabaha kuu horseedi kara inaad isweydaan adiga iyo riyooyinkaaga nolosha aad ka lahayd. waa intaa muuqaalkeeni. haddii aad wuxuun ka faa'iiday fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like noo saarto. taasi waxay noo tahay dhiirigelin weyn. tan iyo muuqaalkeeni xigana waxaan ku dhaafay nabadgelyo.